bulshada amar baa ku dhacay ugaadhdiday bay noqdeen sibay u asqaysan yihiin rajiya amal baan lahayn ayaankuna hiilin waah waxay ummaduhu dumaan akhlaaqda markay lunshaan abwaan yuusuf cabdulle cismaan shaacir oo maanta warbaahinta hargeysa kula hadlay ayaa waxa uu ka digay dad uu sheegay inay samaynayaan waxyaabo ka hor imanaya dhaqanka iyo diinta islaamka kuwaasoo uu sheegay muddooyinkii dambe ay ku soo badanayaan Somaliland. afartaa qodob waxay dhaceen 3 bilood ee u dambeeyay ee sanadkan inuu ku jiro 2019 aan ugu horeysiiyay July waxa dhacay dayaxmadoobaadku markuu dhaco ama cadceedu madoobaato dadka islaamka ay wuxuu oogaa salaad dhacdadaas sidii caadiga ahayd salaadii baa la oogay anigu hargeysaan joogay salaadii markii subaxii ayaan qoraal qoray Twitter-ku ku qoray isagoo aad moodo inuu cid fariin u dirayo wuxuu yiri ninkaasi xalay hargeysa lagama seexan waxaana dadka hurdadii ku suququliyay masaajidada dadkii hargeysa hurda la'aan baa xalay ku dhacday masaajidadaana sabab u ahaa qoraalkaas uu Twitter-ka galiyay dadkii markiiba dareen cadha leh ayay kaga jawaabeen dadku waa dad islaama ninkii wuxuu arkay in bulshada ka hor timi oo dareen xun laga qaatay hadalkiisii runtiina uu ahaaba dabeetana wuxuu yiri dhinaca bulshada u socoto isu daad raaciyo wuxuu raali gelin baan bixinaya markaana uu ka sii daray wuxuu yiri waxaan ka raali gelinayaa dadkii dhibsaday hadalkayga su'aal kale tiba waxa la yaad raali gelinaysaa diintaad meel kaga dhacday toobadkeen baad lahayd inaad ilaahay u noqoto weeye haddaad cid raali gelinayso ilaahay ku abuurtay raali geli mid labaad baan soo qaadaya gabadh baa halkan timi maqaal bay qortay maqaalkeeda waxay uga dhigtay ciwaan hablihii quruxdooda la qariyay waxay tagtay dugsiyada Nuuradiin oo aynu ognahay kaalintay waxbarashada kaga jiraan waxay aragtay habliyo wada xijaaban dabeetana Twitter-kay ku qortay waxay tidhi hablahaas quruxdoodii waa la qariyay jalaabiib dheer oo weyn oo aanay raali ka ahayn baa lagu khasbay waxaanan ka xumahay bay tidhi dalkaygu intuu sidaa yahay inaanu horumar gaadhayn xijaabka iyo asturaanta dumarka aayado badan oo quraan baa ka warramaya oo ilaahay kaga warramaya inantaas waxa uu jawaabay maamulihii dugsiyada lahaa ninka leeyahay Mahad Ibrahim Twitter-ka la isugu jawaabay waxa yaab leh Mahad wuxuu ii sheegay markii dambe safaarada waaweyn baa soo galay buu arrintii oo Twitter-kii iigu soo hanjabay waxyaabaha yiraahdeen waxa kamid ah buu yiri dadkiina hablaha daboolaya marun baa dhici doonta qaynuunka caalamiga la soo hortaago bishan August 22keedii waa tii saddexaad aan raacinaye waxa dalka lagu soo casumay oo xarunta dhaqanku soo casuntay nin u ololeeya in raggu isfaraxumeeyo mala eray bixin ka af Soomaali kaga haboon ma jireen ninkaas wuxuu dhashay dalka Botswana waxa soo casumay xarunta dhaqanka filim buu soo bandhigay dad ilaa 300 oo qof gaaraya ka soo qayb galay waxa la waraystay gudoomiyaha xarunta dhaqanka wuxuu yiri ninkan anagu war kama aanan hayn haddana mar kale gudoomiyaha hadalka sheediyo wuxuu yiri muraad ba kama lihin anagu shakhsiyadiisa anagu buugiisu baanu qiimeyneen ninkayga suuqa jooga ninkan ogaaday ma waxa la iga dhaadhicin karaa ninka soo casumay warba uma hayn waa arrin qosol leh Twitter-kiisa baa la galay oo laga soo saaray anigu waan akhriyay Twitter-kiisa wuxuu ku qoray oo uu leeyahay markaanu ku guuleysanay dalka yaga inaanu wadamada kale dariska yaga aan gaarno oo booqano ayay nala noqotay ma aha markii koobaad ay qof noocaas soo casunto waxa ka horeysay gabadh iyana Ingiriiska u dhalatay oo u dooda iyana in dumarku isfaraxumeeyaan dawladdu ma raba wax warakamay soo saarin bale iska daayay wasiirka arrimaha gudaha ayaa maalintii buugaagta la furayay hadal jeediyay wuxuu yiri dad baa xaruntan wax ka sheega oo wacaynka iyo wacaynka yiraahda xaruntu waxay ka shaqaysaa dhalinyarada ay dhaqanka bartaa maxamed kaan waxaan leenahay xaruntu dhaqanka dadka dhalinyarada barayso balans weydiino qoomaluudkina way keentay ka laftiisu waa dhaqan dadka la bare bal hadda kaana iyana qorshaha lagu daro ta kale su'aalo badan oo la soo weydiiyay aniga waxa kamid ahaa maxaa xarunta iyo ka dhaxeeya dadka qoomaluudka waxa aad u cajiiba dalka inuu dariska nahay Itoobiya
ayaa bari dhowta is aadeen ku shira dadka qoomaluudka ah laba nin bay soo direen kiniisadihii iyo shacabkiiba way kaceen dawladdu markay aragtay dareenkii dadka way joojisay shirkoodii waa laga diiday innagoo boqolkiiba boqol islaam sheeganayna oo islaama ayaa dhexdeennii maalin walba la leeyahay waxaa lagu soo casumayaa dad u ololeynaya qoomaluudnimo waxaa kalaan isweydiiyey marka ninkaasi laba jeer buu ninkani yimi bugfeerkana uu ka soo qayb galay markan dambena wuu yimi bugfeerka imise qof oo kalaa yimi oo noocana mase la tuhmiba karaa inay meeshaba ku shiraan sanadkiiba mar waa su'aalo badan oo isweydiin leh ilaahayna qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay xumaanta haddii la iska qaban waayo ama xumaan in yari samaysay inaanay intaa ku koobnaanayn war haddaynu waxaa daawanno maxaa u malaynaysaa dagaalladan sokeeya aynu ka qaylinayno waxaasoo dhammi haddaynu fitanka iska qaban weyna iyo xumaanta qoomam hore ilaahay inoo sheegay dhirbaaxooyinkii ku dhacay markii culimmadoodii iyo waxgaradkoodii ku daawaday kuwii xumaanta samaynayeen ayaa laynooga warramay dhirbaaxooyinkii ku dhacay qodobka u dambeeya afraad kan 2-3 casho ka hor isaguna soo baxay ee hablo marfish fadhiya ayaa saxaafadda la soo geliyey